الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحبة في الله waxaa inagu soo dhow foodana inagu soo haysa bishii barakaysnayd ee Ramadaan allana tabaaraka wa tacaala waxaa ka mid ah nicmooyinkiisa iyo galladihiisa aan la koobi karin inuu u sameeyay adoomadiisa waqtiyo ay cibaadada iyo taacada ku tartamaan asagoo adoonka laga rabo xilli walba iyo bil kasta iyo sanad walba iyo xilli walba inuu Ilaahay caabudo ayaa haddana waxaa laynoo sameeyay waqtiyo gooni ah oo loogu talagalay inaan galno tartan ziyaada ah laga faa'iideysto bishii barakaysnayd ee Ramadaan baa kamid oo inagu soo aadan waa xilli Rabbi tabaaraka wa tacaala uu dhaxdiisa dhigay baraka iyo khayraad fara badan waa xilli Rabbi tabaaraka wa tacaala ummadda Nabi Muhammad sallallahu rabbi wa salaam alayhi hiba loo siiyay hiba qaali ah oo Ilaahay Nabi Muhammad ummadiisa uu siiyay way salawaatu rabbi wa salaamu alayhi sidaas daraadeed waqtiga qiimaha badan ee inagu soo socda ee muddada kooban ay ka laaban tahay inaad ku baraarugto way una diyaar garowdo saad uga faa'iideysan lahayd shayga ugu muhiimsan ee maanta ku hor yaalana ka isaga wax naftaada ma ah ganacsigaagana ma ah xoolahaagana ma ah shayga ugu muhiimsan ee maanta miiska ku saarani waa Ramadaan seed uga faa'iideysataa wax dhowr qodob aan tilmaano oo loo baahan yahay intayna bishu soo galin inaynu meel saarno qodobka koobaad iyo tilaabada koobaad waxay tahay inaynu ogaano qiimaha iyo qadarka ay leedahay bishani leedahay jaaniskani intuu leeyahay iyo qiimaha iyo qadarka uu leeyahay inaga mudan yahay inaynu ogaano waa laga marmaan لأن كل شيء سيدا وكوغو قيميسيه ayaa dadaalka aad ku bixinaysay uu noqdaa waxay naga filan qodobka isaga nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi malakul jibriil baa u yimid markaas wuxuu ku yiri ha fogaado oo naxariista Ilaahay ha ka durko ha laga durkiyo ruux Ramadaan u soo galay oo Ramadaan dhamaado korkiisa ku dhamaaday asagoon loo dambi dhaafin wax loogu dambi dhaafo Muuse la iimaanin soonkii bisha salaadihii sadaqadii umradii quraan akhriskii cibaadaadkii dambi dhaafka laga helayay kamuusan faa'iideysanin meelahaas uu taagtaagnaayo waqtigiisa ku lumiyay jaaniskii baa dhaafay Ilaahay agtiisa muxuu ku leeyahay waa dayro way kaas Ilaahay waa dayri waa nin la fogeeyay sababtuna maxay tahay Rabbi tabaaraka wa ta'ala haduu nicmo ku gudoonsiyo ku siiyo oo nicmadiisa ka shukrin waydo oo siday tahay aad u gudoomi waydo natiijadu waxa weeyaan wala in kafartum in 'adaabi la shadiid wa in markaas lagu ciqaabo lagu fogeeyo wa sidaas daraadeed qodobka koobaad inaynu ogaano bishan inaysan bilihi kala la mid ahayn waqtigeedana uusan ilaa noqonin sida sanadka intiisa kale way ka duwantaa wayna ka soocanta waa qodob iyo tilaabo muhiim ah qodobka labaadi waxa weey ee mudan inaynu baraarujino in muddada gaaban ee bisha inooga laaban aad ku ducaysato inuu Ilaahay ku gaarsiiyo oo caafimaad kugu gaarsiiyo nabadgelyo kugu gaarsiiyo sidaasi waxa ahaan jiray akhyaartii iyo salafkii inaga horeeyay ridwaanullaahi calayhi 6 bilood oo Ramadaan ka horeysa ayay Ilaahay weydiisan jireen Ilaahu Ramadaan na gaarsiiyo waa jaanis weyn inaad gaari doontana ma hubtid sax saacada ka laaban waqti kooban baa ka laaban laakiin damaanad ma haysata inaad gaari doonto maya imisa walaalaheenaha oo Ramadaankii hore ina la soomo ina la salaado ina la cibaadaysto oo jaaniskan mar labaad aan la siinin adigana waxa dhici karta inaadan gaarin
haddaad gaadhana waxaa dhici karta ka ku xiga inaadan gaadhin sidaas daraaddeed waa in aad ilaaha weydiisato inuu ku gaadhsiiyo bishan adoo nabad qaba ammaanna ku siiyo qodobka saddexaadii wuxuu yahay bishu markay dhalato nabigeenna waxaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh inaad ducaysato iyadana oo wuxuu ku ducaysan jiray nabigeennu sal alla alay wasalam ducadaan sheegnay allahu akbar allahuma ahillahu calayna biاlamni waaliimaan ilaahu bisha noogu dhali iimaan iyo ammaan nabadgelye iyo islaam tawfiiq aadna waafajiso waxaad jecesheed raalli ka tahay markaasuu wuxuu dhihi jiray biley rabbigaa iyo rabbigay waa allah tabaaraka wa tacaala ducadaasi qiimahay leedahay waxa weeye bishan bilatayee kugu soo aaday in khayrkeeda lagu waafajiyo ilaahay ku waafajiyo kuna tuso inaad samaysana kuu fududeeyo ayay ducadu ku saabsantahay qodobka xigaayo wuxuu yahay bishii baad soo gaadhay way noo bilatay nabad iyo nabadgelyaad ku soo gaadhay caafimaad baad haysataa ilaahay tabaaraka wa tacaala inaad nicmada uga shukrido ramadaan inaad soo gaadhay adigoo nabad qaba maxaa yeele shukriga nicmada rabbi aad garatay ee aad ka shukriday wuxuu keenayaa in siyaado lagu siiyo lain shakartum la asiidannakum waa laguu kordhin nicmadii baad garatay waa nicmo diineed waad ka mahad celiso ilaahay baad u aqoonsatay allah tabaaraka wa tacaala nicmooyin kaloo diineed buu kuugu darayaa kuugu siyaadinaya sidaasi waa qur-aanka kariimkaa siduu noo tilmaamay oo nicmo markaad ka shukrido tu kalay jiidanaysaa oo wadataa markaad taa ka shukridana kuwa kalay wadataa oo jiidanaysaa wahaakadaa nicamku waa iswataan macaasida iyo dunuubta iyo kufraankuna waa iswataan marka shukri ilaahay nicmadiisa ka shukriyo qalbigaaga ku weynaato qodobka xigaayo wuxuu yahay ee baraarujinta mudan bishii inoo soo socoto bishu markay dhalato iyo dhalashadeeda iyo soo dhowaynteeda waa inaan ku faraxno waa inaan bishaaraysanno waa marti aan aad u jeceshahay waalidkaa oo wakhti dheer kaa maqnaa xaaskaadiioo wakhti dheer aydaan is arkin kulanka kuugu hormaysaad kulmaysaan soo aad uma faraxsanid laa shaka fii dalik tabtahij sidaas daraaddeed waxaa ka qiimo badan waxaasoo dhan bishan oo nabadkuugu soo gashay marti qiimo badan weeye oo kuu timid waa inaad martisoor fiican martisoorto soo dhowayso kuna faraxdo imaanshaheeda nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh markay bishu soo gelayso saxaabadiisu u bishaarayn jiray wuxuu dhihi jiray bishii ramadaan baa idiin timidoo soo gashay waa bil baraka iyo khayr badan khayrkeeda iyo barakadeeda la badiyey allah tabaaraka wa tacaala soonkeeda ayuu waajib idinkaga dhigay iridihii jannada ayaa la furay iridihii jaxiimo iyo naartana waa la xidhay shayaadiinta kuwoodii khayrka darnaa ee madaxa adkaa ee sharka ku mudhxay ayagana waa la xidhxidhay waa la katiinadeey habeen baa ku jira bishaas ka khayr badan 1,000 bilood ruuxii khayrka habeenkaa laga qadiyana isaga ayaa xaqiiqo wuxuu yahay ruuxa qaday oo wanaag oo dhan ka qaday nabigeennu waa u bishaarayn jiray marka saxaabada war wax weyn baa yimid war ka gacan fadhiga war baraaruga marka inaad bishaaraysato ood ku farxdo allana qur-aanka kariimka wuxuu inoogu sheegay iimaanka islaamnimada qur-aanka ku farxa waa fadli alle qul bifadli illaahi wa biraxmatih waa khayr aakhiriya adduunba wey allah naxariistiisa iyo fadligiisa faliyafraxuu ha ku farxaan huwa khayrun mima yajmacuuna asaga ka khayr badan waxaanay uruurinayaan ee adduunyada ah kuraasta aad haysato milkiga iyo boqortooyada xoolaha jeebkaaga iyo akawnkaaga ku jira naftaada lafteeda caruurtaada iyo guryahaaga kulli waxaa kaaga qiimo badan hal camaloo aad janno ku hesho ama ilaahay cadaabkiisa kaa badbaadiya huwa khayrun mima yajmacuun taasi waxay cagsi ku tahay in badan oo muslimiinta ka mida walilasaf khaasatan dadka caadaystay adduunyada iyo maladaadkeeda iyo shahawaadkeeda ilaahay hana asture bishii ramadaan baa soo dhow marka la yidhaahdaba waa naxaya
waa murgaya cidhiidhi buu dareemaya war miyayna kugu filayn 11 bilood baad cunaysi oo aad cabbaysi oo aad raaxaysanaysi oo saad doonta samaynaysi ayaduna waa ayaam waa maalmo kooban oo tirsan wey war maxaad ka nixiyo ku haysta waa caafimaadka jidhkaaga waa aakhiradaadii iyo jannadaadii iyo daartaadii aakhirood dhisanayso waa faa'iidooyin bulshada u soo noqonaya ayadoo dhan waa fawaa'id aakhiriya adduunyo waaye maxaad ka nixi marka inaad ku faraxdo waa inaan bisha ku faraxna imaanshaheeda inaan ka naxno maaha qodobka xigaayo wuxuu yahay loo baahaya inaan ku baraarugno bishan waa inaad qorshayso oo aad nadaamsato dejisato qaabkaad uga faa'iidaysan lahay bini aadamku kama soo hadho takhtiidka iyo qorshaha iyo nadaaminta kama soo hadho habeenada iyo maalinta bishu ka kooban tahay saad uga faa'iidaysan lahayd qorshaheeda deji kadibna yuusan jaanisku si fudud kugu dhaafin waxay kugu kaalmaynaysaa in aad sidaad rabtay wax u hesho bitawfiiq illaahi tabaaraka wa tacaala miaal maalan haddaan tusaale idin siiyo waxaad rabtaa inaad bisha ramadaan aad qur'aanka dhammayso 5 goor waa go'aan soo maaha go'aankaasi waa inaad u dejiso wakhtigiisii maalintii imise goor baad rabtaa inaad fadhiisatood qur-aanka akhrido iyo habeenkii muddo walbana intee juz baad rabtaa inaad akhrido qorshe degan oo isku habaysan oo nidaamkii go'aankaad dejisay waafaqsan ayaa markaa kuu soo baxaya laakiin si fawdo oo hamajiya haddaad bisha isaga gasho barnaamij kale oon qorshahaagaba ku jirin baa ku kaxaysan doonta kadibna bishii waaba dhammaatayba beddelka aynu adduunyadeenna qorshe iyo nidaam u samaysanayna tanaa ka mudan ganacsadada iyo tujaarta waa idinka arkay bilaha suuqu dhaqdhaqaaqayo ee ganacsigu fiican yahay intaan la soo gaadhin bilahabaa qorshe la sii dejinaya qorshihiibaa badeecada lagu keenaya bakhaarada la buuxinaya nin walba wuxuu isleeyahay jaaniskana yuusan si fudud kugu dhaafin waar miyayna ka mudnayn inaynu aakhiradeenna aynu qorshe u dejisanno iyo saynu jaaniskan uga faa'iidaysan lahay wakadalika ninka siyaasiga ee kursiga rabaay markuu go'aansado inuu kursi raadiyo qorshihii buu dejinaya shirar reehebel la shir kooxebel raadi dhaqaalihii isku hagaaj xagga wad yacni waxaa ka horreeya qorshayntaa ka horraysa intaan tilaabada qaadin qorshayso qaabkaad bisha uga faa'iidaysan lahay waxay kuu fududaynaysaa hawsha iyada qodobka xigaayo wuxuu yahay go'aan qalbigaaga ah iyo doonitaan dhab ah qalbigaaga ha laga arko allah tus tabaaraka wa tacaala qalbigaagana ha ka arko inay go'aan kaa tahay inaad bishaa faa'iidaysan rabto daaca inaad rabto aakhira inaad rabto inaad ridihiisa raadinayso go'aankaa qalbigaaga ha lagu arko maxaa yeelay allah tabaaraka wa tacaala addoommada wuxuu wax ku siiyaa kolba qadarka go'aankooda iyo niyadooda xadiidkii nebiguna waa kii ahaa innama alacmaalu binniyaat niyadaada iyo qasadkaaga buu alla fiirinaya xadiidkii waa kii ah nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaamikum walakin yandur ilaa quluubikum waacmaalikum allah meeshuu kaa fiirinaya waa qalbiga maxaa qalbigaaga ku jira haddaad rabto inaad wakhtiga kaga baxdo laalaab kaga baxdo oo aad wareegaysato ama adduunyadaadaba u badato qalbigaaga hadduu sidaa ku jiro wixii qalbigaaga ku jiray baad ilaahay ka sugi tabaaraka wa tacaala biidni illaahi tabaaraka wa tacala saas daraaddeed go'aan oon shakiya laalaab ku jirin oo saadiqa ilaahay ula imo faidaa cazama almru falow sadaquu allaha lakaana khayran lahu man sadaqa allaha sadaqahu tabaaraka wa tacala ruuxii ilaahay run kula dhaqma ilahay run buu kula dhaqma go'aan dhawa marka la imo qodobka xigaayo wuxuu yahay bishii baa soo socota intaynan bishu gelin waxaa la rabaa inaan ku dadaallo sidii aynu u baran lahayn axkaamta bisha ku saabsan u fahmi lahayn see bisha looga faa'iidaystaa soonka iyo axkaamtiisa salaada taraawiixda iyo axkaamteeda sadaqa haddaad baxsanaysa iyo axkaamteeda haddaad cumraysanaysa iyo axkaamteeda qur-aanka akhrintiisa iyo aadaabtiisa
waa inaad barato ood haddaba ku dadaasho lianna waxa weeyaan waxa aad samaynaysa hadduusan cilmiyaysnayn waa tacab khasaar ilaahay agtiisana waxba kaga heli maysid cilmiguna wuxuu asaas u yahay caqiidada iyo hadalka iyo ficilka wax kastoo la samaynayo cilmiga asaas u ah faclam annahu laa ilaaha ila allah saas daraaddeed buu alla wuxuu ka dhigay awala fariida cala kulli muslimin wa muslima waajibka ugu horeeya ruuxa muslimka rag iyo dumarba saaran waa inuu barto siduu u cibaadaysan lahaa marka haddaad akhrin karto kutubta akhri wixii laga qoray akhri haddaadan akhrin karin oo taalacan karaynin dhegayso wixii laga duubay haddii ay wax kaa qarsoomaan oo masale kugu adkaato ha iska qardajeecine ehelkeedii iyo culimmada weydiiyoo la carar fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun si aad allah u caabudo calaa cilmin wa basiira aqoon iyo garasho si aad ugu caabudo ee aadan jahli ilaahay ugu caabudin in badan oo caamada ka mida walilasaf waa dadaalayaan laakiin marar badan dadaalkoodu meel khaladu ku dhacaya waxagaajiyay isleeyihiin ayagoo ilaahay u dhowaada leh waxaa laga yaaba inay ka fogaadaan leanna wixii maba garanaysidba yaa salli irjic fasalli fa innaka lam tusalli baa ku taalla kac noqo salaada ku laabo tuko wixii hore oo tukatay waxba ma ahayn waadu iska foorfoorasatay mooye salaad maada tukanin leanna salaadaadu ma cilmiyaysnayn soonka iyo habeenka istaaggiisana nabigeennu wuxuu uhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh ruba saa'imin laysa lahu min siyaamihi ila aljuucu waalcatash dad badanoo sooman soonkooda ka heli maayaan waxaan oon iyo gaajo ka ahayn waxba ilahay agtiisa uma yaal way un rafaadeen wa ruba qaa'imin laysa lahu min qiyaamihi ila asahar dad badanoo habeenkii taaganoo taraawiix u taagan oo salaatuleyl u taagan istaaggaa iyo waxay ka helayaan keliya inay soo jeedeen oo daaleen oo rafaadeen laakiin ajir ma laha war maxay ku dhacday waxbaa kaa khaldan ama niyadii iyo ikhlaaskii baa kaa khaldan ama camalkaagaan waafaqsanayn hadyigii nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh saas daraaddeed waa lagugu soo diidaya cilmiyeeya cibaadadda qodobkaasi waa qodob weyn qodobka ugu dambeeya ee mudan inaan tilmaanno isagana waxa weeye bisha soo gelitaankeeda ka hor markay soo gasho dhammaadkeeda waxaad ku dadaashaa inaad towbad keento ilaahay u soo laabo wixii dembi aad geli jirteed caadaysatay joojiyo ka go' wixii horay kaaga dhacay ka qoomamood oo qalbigaagu ha ka gubto go'aanso inaadan dib dambe ugu noqonaynin ilaahay dartiina u sameeya markaad saa u toobad keento toobad rasmiya aad keento qalbigaaga wixii daxal fuushay mugdigii fuulay wasakhdii fuushay kulli waa la daahirinayaa qalbigii waa dhalaalayaa waa xoogaysanayaa socdaalka uu xagga rabbi ugu jiro ayuu wuxuu u helayaa awood u helayaa daacadii buu ku sabrayaa qur-aanka akhriskiisu ma dhibayo salaada intii la taagnaadaba waa taagnaanaya waa sabraya soonka iyo dhibkiisa waa ku sabraya laana waa qalbi xoog badan oo iftiimaya waay iimaan xoog badan baa ku jira saas daraaddeed baa nabigeennu wuxuu uhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh addoonka markuu dunuubta galo qalbigaa wasakhoobo daxal fuusha markuu soo laabto ka soo laabtana qalbigiisa waa la soofeeyaa waa la sifeeyaa waa la daahiriyaa soo ma aragti marka qalbiga daahiri saan soo sheegnayba meesha ilaahay kaala mucaamalonaya waa qalbiga haddaad aragto adoo caajisan cibaadadii kugu adag tahay jiitamayo cag jiidaaya rafaadsanoo cibaadaysan la aafadu xaggay ka socotaa qalbigaagay ka socotaa kan khayrka u hormaray ee khayrkii ka horeeyana arrintu waxay ka socotaa qalbigiisay ka socotaa bacda tawfiiq illahi tabaaraka wa tacala alaa wa ina fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa aljasadu kulluh waidaa fasadat fasada aljasadu kulluh alaa wahiya alqalb marka qalbiga hagaaji nadiifi cuqdada ka saar cadhada ka saar xumaanta ka saar shahawaadka jacaylkooda ka saar shubahaadka ka saar qalbiga nadiifi wixii galayna ka toobadkeenoo daahiri si aad bishan si qiimo badan uga faa'iidaysato
daacaadka rabbiga kala gadisanna aad qaybtaada uga qaadato khitaamka waxa weeyaan iyo gabagabadu waxaad isku daydaa acmaasha bishan taalaay way fara badan tahay mid walba qayb ku darso soonkii waad soomanta salaadiina waad salaadaysaa sadaqada wuxuun ku darso haddaad cumraysan karta gal qur-aanka akhriskiisa ka qayb qaado salaadii habeenkii ka qayb qaado khayroon afurinta dadka sooman ka qayb qaado meel keliya ha isku koobine meel walba inay lagu kugu jiri karto isku day waxayna nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh acmaal fara badan oo kala duwan markuu sheegay ruux hal maalina inta isla sameeyey janna loo ballan qaaday buu nabi maxamed yiri salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka majaal walba khayrkiisa iyo wanaagga yaalla inta ugu badaneed ka qaadan karta ka qaado si ilaahay kuu saamaxo tabaaraka wa tacaala qoortaada naar uga xoreeyo jannadiisana kuugu waajibiyo iyo ridihiisa tabaaraka wa tacaala sallu wa sallimu ala khatami al-anbiya'i wal mursaliin allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه من الخيرات والطاعات ما تحب وترضى يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان اللهم انصرهم نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر هذا الدين واخذل من خذل هذا الدين يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا